waa caabuq ku dhaca qayb ka mid ah xiidmaha waaweyn. Xiidmaha waaweyn wuxuu leeyahay qayb yar oo la dhaho appendix. Waxa uu caloosha kaga yaalaa midig xagga hoose una eg sida farta finger-like structure. qaybtaasi u eg sida farta haddii caabuq ku dhaco waxaa afkeena hooyo lagu yiraahdaa qabsin, halka afka qalaad lagu dhaho appendicitis. Qabsinka waa xaalad caafimaad degdeg ah una baahan dhibnuhu in laga qalo mise loo sameeyo surgery. xanuunkani waxa uu ku dhici karaa da' kasta, laakiin carruurta da'dooda ay ka yartahay 2 jir uma badna. Wuxuu ku badan yahay dadka da'dooda ay u dhaxayso 10 ilaa 30 sano. qabsinku wuxuu dhici karaa marka appendix-ka uu xidhmo. waxyaabaha xiri kara waxaa ka mid ah sida infectionska dhagaha, saxarada adkaatay, kansarka iyo miraha. calaamadaha lagu aqoonsado qabsinka waxay noqon karaan xanuun daran, lalabo iyo matag, qandho dhexdhexaad ah laakiin way korodhaa haddii uu dhibnuhu helin daryeelkii loogu baahnaa, calool istaag mise shuban, calool barar, tibiro, dhuuso. haddii aad qof ugu shakido calaamadahan, fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow sidaad ugu hesho talooyin iyo dawooyinka ku habboon xanuunkan. qabsinka ma lahan wax ka hortag ah, laakiin waxaa jira waxyaabo yareyn kara fursadaha uu kugu dhici karo xanuunkan. waxaa ka mid ah sida in aad isticmaasho cunnada ku badan fiberska. haddii dhibnuhu helin daryeelka loogu baahnaa, waxaa dhici kara infekshanka inuu ku baaho caloosha iyo dhimasho.